إيهاب دي السلام بوكر. عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصحاب السوشيال ميديا iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan. Waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo video kooban oo record ah oo insha Allah tacaala marka arrintan soo baxdo dib loo daawado inaan maanta idin duubo. oo ciwaan aan uga dhigay madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu aaday doorasho wuxuu aaday muddo kororsi xoog iyo xeelad sidoo ku helaba isagoo aaminsan in uu intuu helay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynihii hore intuu helay in ka badan inuu heli karo waxaana u daliila toddobada qodob ee aan idin sheegi doona number 1 waa inuu heer habeen ku wardinayo doorasho qof iyo cod ah oo aan wixii loo baahnaa in la qabto aan hore loo qabanin waxaa ka mid ah dalka in la wada xoreeyo oo waqtigan dadka intiisa badan soo haysata si dadka ummadda Soomaaliyeed qaybadeeda kala duwan ay fursad ugu yeeshaan hadiiba qof iyo cod la aadayo in ay codeeyaan waxaa ka horeeya in ummadda dhan tirkoob lagu sameeyo oo la og yahay tirada dadka codeynaya waxaa muhiim ah iyada in ummadda la wada diiwaan geliyo in kaararkii codbixinta la wada siiyo in qawaaniintii xisbiyada la sameeyo xisbiyada naftirkooda ayaga la wada diiwaan geliyo lagana heshiiyo oo dhammaan maamul goboleedyada iyo saamiyada siyaasadda ay heshiis ka wada yihiin taas iyada waxaas oo ka horeeya doorashada qofkii codka iyadoo la sameeynin ayuu wuxuu ku leeyahay doorasho maalin walba wuxuu masaajid dhex ugu wardinayaa waxaan qabanayaa doorasho qof iyo cod taas waxba ka jira dabcan waa qodobka koowaad qodobka labaad wuxuu aaminsan yahay shalay maadaama farmaajo iyo fahad uu jaabka ugu jiray gudoomiyihii baarlamaanka mursal wuxuu aaminsan yahay maanta inuu aadan madoobe uu jaabka ugu jiro sida waana ninka ku dhiiraday inuu yiraahdo 250 mudane ayaa baarlamaanka soo xaadiray 250kiina waxay u codeeyeen sida madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu rabo inuu dastuurka u farsamaysto ayay wada ogolaadeen waa fadaxtii ugu weynayd laakiin waxa ku tusaysaa in uu berino dhigi karo baarlamaanka ayaa maartay gacan u taagay waxay u codeeyeen in maartay another 5 years uu iska sii joogo madaxweyne xasan sheekh waxaa intaa ka sii daran shalay maadaama lagu dagaalamay maxay ahayd caasimadda markuu madaxweyne farmaajo isku day xoog inuu 2 sano macnaha muddo kororsi marsado wuxuu og yahay bari laga yaabo in lagu dagaalamo caasimadda sida daraadeed wuxuu si xooliya u qoranayaa ciidamo jufoosaadkiisa ah saraakiisha hadda ciidamada haystana maalin kasta nimidu bedelaya wuxuu ku bedelayaa sarkaal jufoosaadkiisa ah waxaa kaloo ku tusaysa sida uu ugu noqonayo macalinka maxaa dictator laga soo qaata casharada dictatornimada iyo xukunka sida loo sii haysto oo muddo dheer la isaga joogo xukunka awood ciidana loogu joogo waa kuna noqoshada kuna noqonaya afawargi iyo Eritrea ayadoo dabcan ciidamo jufeedkaasna loo qorayo nasiib darro jirta shalay haddii farmaajo uu laf nuugish ku noqday ra'iisul wasaare xasan cali khayre maanta wuxuu haystaa madaxweyne xasan sheekh ra'iisul wasaare aan ilka lahayn oo shalay asigoo jooga oo kursiga ra'iisul wasaaraha reerna ku matala block D iska dheh la macnaha yacdihi waayay xasan sheekh oo lagu qanciyay in laga dhigo ra'iisul wasaare madaxweynaha uu eri karo aan ilka lahayn waliba hadana lagu qanciyay ninkii taliyaha booliska ahaa ee jufoosaadkiisa ahaa in la eriyo marka waa ra'iisul wasaare wax walba laga samaysan karo inuu haysto oo muddo kororsi aan sida xasan cali khayr ugu hor imaanay sida la og yahay xasan cali ra'iisul wasaare xasan cali khayr wuxuu yiri doorasho la aadaya dabcan adeero adiga hadda madaxweyne noqotay waa markayga aniguna damaca ugu jireen wax la yiraahdo muddo kororsi ka yeelmaysay aan doorasho aan wato farmaajo ku yiri marka lagama yaabo inuu ninkan ku yiraahdo sida madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxyaalaha isku haleynaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa inuu muqdisho ka soo jeedo wuxuu isleeyahay shalay haddii xooga ay ciisho farmaajo inuusan muqdisho ka soo jeedin reer ahaan ka hadlaya oo waxaan ogahay farmaajo inuu ciyaal xamar yahay naftirkiisa reer ahaan ka hadlaya wuxuu isleeyahay taas adiga ku caawinaysa wuxuu hadda bilaabay inuu adeegsado culimada khaasada kuwa jufadiisa sida sheekh cali wajiis oo xalay soo qoray inuu maaragtay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu qabto doorasho qof iyo coda waliba quote and quote intay rabta qaadatay waa muddo kororsi wuxuu leeyahay 40 kun ciidan soo daadi macna xoog ku qaado waay laakiin la yaamayo sheekh cali wajiis maxaa yeelay sheekh cali wajiis wuxuu aaminsan mabda ah nin walba oo hooyada qaba waa adeerka sida daraadeed oo aabaha ahayn dabcan sidii sana laga soo bilaabo madaxweyne Allah u naxariistay siyaad barre ilaa maanta madaxweynaha markaa joogo wax alla wuxuu rabo ayuu ma aragtay taladaas u jiibiyaa tan ka daran waa in uu maalin madaxweyne xasan sheekh jeedii khudbad ahayd in guryaha loogu dhacayo
haddii u dagaalamaana lala dagaalamayo qofkii sharci ka hor yimaada oo uu la jeeday in guryaha loogu dhacay sheekh shariif xasan cali khayre cabdiraxmaan cabdishakuur iyo dadka lamid waxaan kuwa kale waa la handadi karaa laakiin saddexdan ciidama handadi karto khaasatan wuxuu aad uga walwalayaa madaxweyne sheekh shariif oo ah ninka uga saameynta badan ciidamada gudahooda oo laga yaabo inuu dhowr boqol oo tignika hal mar ay soo dhaqaaqdo sidaa daraaddeed waxaa la isku dayay in jufaan loo xaliyo nairobi la isugu tagay way shaqayn weysay ma garanaya hadda ma la sumayn doonaa talo markaad fiiriso toddobada qodob waxaa kuu soo baxaysa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu aaday doorasho inuu aaday sorry muddo kororsi xoog iyo xelo sidoo ku helaba videogan meel hala dhigto salaam calaykum waraxmatullahi wabarakaatu